بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena Farxiya Kushiin. Asxaabta qaaliga ah mar kale iyo muuqaal cusub saak waxaan inoo wadaa quraac dhadhan leh laga sheekeyni karin maasha Allah tabaarakallah, canjeelo iyo shakshuuko, dhinaca kale kafee waay ama qaxwo qofba suu u yaqaano. soo dhawaada daawasho wanaagsan, waxaan rajeynaa inaad ka heli doontaan insha Allah. ugu dambeyntii quraacdeena saan ayay kusoo baxday. ugu horeyn haddii aad ku cusubtay channelka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe taabatid kadibna gambaleelka taawo si muuqaal walba soo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah. haddii aad gambaleelka taabatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo. canjeeladii aan rabo marka hore inaan qaso bakeeriga haafkiisa oo boorash ah ayaan rabaa inaan soo shiido. makiinadaan rabaa inaan ku shiido. makiinadan haddii aad u baahan tahay waad helaysaa, ila soo xiriir insha Allah. waxaa ku shiidan kartaa waxyaabaha qalalan oo dhan ayaa lagu shiidi karaa. ujeedaan boorashka see ka dhigtay bur camal. waxaan soo qaatay baaquligaas kadibna waxaan ku shubayaa bakeeriga haafkiisa oo boorash ah. kadib waxaan kusoo darayaa 2 koob oo bur ah. koobkii koowaad ayaan ku shubay. koobka labaad ayaan kusoo shubayaa. kadib waxaan kusoo darayaa bakeeriga haafkiisa oo galley ah. galleyda oo soorta laga sameysto daqiiqda ayaan ku darayaa. intaas kadib waxaan ku darayaa ilaa 3 qaado oo sokor ah. kadib waxaan kusoo darayaa qaadada haafkeeda oo khamiir ama fixiso qofba suu u yaqaano. kadib waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah. kadib waxaan kusoo darayaa biyo kulul ama biyo qandac ah, biyo aad u kulul ma ahan. haddii biyaha aad u kulul yihiin ama ay karkarayaan ma soo khamiiraayo. biyo diiran ayaa ku dareysaa. intaas kadib waxaan ku darayaa 1 xabo ukun. ukunta waad ku darsan kartaa waadna ka dhaafi kartaa. kadib waxaan usoo qaadanayaa makiinadaas si fiican ayaan u qasayaa ama gacanta la geli kartaa, aada u garaaci kartaa. waa inaad si fiican u qastid, kuskuusmi inay kaa yeelato lama rabo. hadda biyo kale uma baahno, intaan ku filan makiinada len si fiican ugu shiidayaa. asxaabtii ku cusub qalbi furan iyo welineed saafi ah soo dhawaada channelka hore u gala, waxyaabo badan ayaa ka faa'iideysaan. muuqaalkana like-ta u badiya si anigana dhiirigelin iigu noqoto. burki waa soo qasay. intaas kadib bacaan afka saarayaa. ugu yaraan 30 daqiiqo ayaa dhigaysaa. haddaad doontid habeenkii qasi kartaa, subaxdii aad karin kartaa ama intaad shaaha iyo waxyaabaha kale ka diyaarsanaysid ayaad dhigaysaa. hadda waa kusoo laabtay. burkii wuu soo khamiiro ujeedaan saan hadda markuu yahay. mar labaad ayaan qasayaa. makiinadaan usoo qaadanayaa. mar labaad ayaan si fiican u qasayaa si burkii uu si fiican isku dhex galo. hadda diyaar waayo canjeeladaan duwaneynaa. burkan waa dareemi kartaan siduu yahay. bur aad u jilicsanna ma ahan, bur aad u culusna ma aha. haddii cusleysid waxaa waa canjeero buuran ay kaa noqonaysaa oo macnaha sida sawaayada camal canjeero culus ay kaa noqonaysaa. kastoo burka waa inaad iska qafiifisid. intaas kadib birtaawadan dabka saaray. wax yaroo saliid ayaan kusoo tirtiray. xabadii koowaad ayaan kusoo dhejinayaa. kadib daboolaan dhab ku siinayaa. maasha Allah tabaarakallah, saas ayay kusoo baxday ujeedaan xabadii koowaad. tan labaadna sidoo kaleeto xabadii labaad ayaan kusoo dhejinayaa. saaka canjeelo iyo waxay ka shidan tahay shakshuuko cajiib ah maasha Allah, dhadhankeeda lagama sheekeyn karo. qaabkan u sameynaa haddii aad u samaystid waa lagu cimaamadi doonaa ku dhan fahanteen. maasha Allah ujeedaan xabadii labaadna sidoo kaleeto. kuukarkan haddii aad u baahan tahay ila soo xiriir waa helaysaa. kuukaradan koronto badanna ma isticmaaleyso. wax walbana waa lagu karin karaa. digsi walbaa saari kartaa. gabdhaha qaar waxay u maleeyaan koronto inuu yahay gaas. kan gaas ma ahan, koronto ku shaqeeyaa. waa kuukar koronto loo isticmaalaa. canjeelada sheekadu way soo dhamaatay. 2 xabo yaanyo ayaan biyo kusoo kariyay. dhinaca kale waa jab basal ah ama jeex basal ah iyo 2 xabo oo toon ah. yaanyada biyaha ku kariyay macnaha uma baahna inaad biyo kale ku dartid, sideeda ku shiidi kartaa. waxaan kusoo ridayaa makiinada. yaanyada, basasha iyo toonta waxaa rabaa inaan soo shiido. howl fududeen wixii dhan meesha aa shiilshiili lahayd
wixii dhan hal mar isku shiidaysaa. yaanyada haddii biyo aad ku karisid waxaa waa ayadaa jilicsan soo maahan, biyo kale inaad ku darto uma baahni, saasoo ku shiidi kartaa. digsiyan dabka saaray, waxaan ku shubayaa wax yar oo saliid ah, kadibna yaanyadii, basashii iyo toontii isku soo shiidnay ayaan ku darayaa. intaas kadib waxaan kusoo darayaa xawaajiyo. hadda waxaa sameyn rabo waxaa waaye shakshuuko, ukuna rabaa inaan ku daro iyo maxaan ku irahdaye cheese, micnaha cheese rabaa inaan ku daro, cheese mozzarella ama farmaajo qofba u yaqaano. waxaan ku daray qaadada haafkeeda oo cusbo ah, qaadada haafkeeda oo xawaaji isku dardar ah, qaadada haafkeeda oo huruud ah, qaadada haafkeeda oo barbarooniga shiidan. xawaaji alaali xawaajiga haystid ayaa ku darsan kartaa. intaas kadib qaadadan dhexmarinayaa, dabkan u yareynayaa, micnaha biyo inaad ku dartid uma baahnid, intaan kugu filan, dab kale u yarey. daboolaan saarayaa 5 daqiiqo kadib waa kusoo laaban doonaa insha Allah. hadda waa kusoo laabtay, waxaan rabaa inaan waxyar qaadada dhexmariyo, kadib ukuntii aan kusoo darayaa. 3 xabo ukun ayaan ku ridayaa. saddex xabo ukun markaan ku rido kadib waxaan sameynayaa daboolkan saarayaa. ukunta intay ka yara bislaanayso, ukunta markay yara bislaato ayaan kusoo laabanayna insha Allah. hadda waa kusoo laabtay, ukuntii waa ay bislaatay, dab yar leh u baahan tahay. kadib waxaan soo qaatay cheese mozzarella ama farmaajo qofba u yaqaano, wax yar ayaan ku dadaadinayaa. waa ka badin kartaa oo waad ku yareyn kartaa, waad ka dhaafi kartaa, qasab maahan inaad cheese ku dartid. kadib basal baar ayaan soo jarjaray, basasha caleenteeda saas ayaan ugu kor dadaadinayaa. daboolkan dhab ku siinayaa 3 daqiiqo oo kaliya ayaan sugeynaa intii oo cheese-ka uu ka dhalaalayo. ugu dambeyntii diyaar waayo, ujeedaan maasha Allah tabaarakallah, inaba caadi ma ahan. canjeelada leh ku macaanta mis dhahdeen. dhinaca kale waxaa waa qaxwo ama kafee qofba u yaqaano. quraacda ayaan soo diyaarsanaynaa. dhammaantiin waxaan idin codsanaa muuqaalka ha noqdo kii ugu like badnaa. waad ku mahadsantiin daawashadiina, dhiirigelintiina iyo weliba koomentiyadiina. canjeeladiina waa ujeedaan ugu dambeyntii sida kusoo baxday, dhadhankeeda, carafteeda lagama sheekeyn karo maasha Allah. intaan haysan ilaahay siiya, anagana ilaahay inoo barakeeyo. waxaan idin codsanaa muuqaalka inaad sii share gareysaan, 2 qofba ha noqoto, hal group ha noqdo, asxaabtiin u sii share gareeya, like noo saar insha Allah. waxaan idinkaga tagaa khayr iyo caafimaad, bidilaahi insha. mac salaam.